ku xidhnow LVD waa codkaagii waa codkeygii waa codkeennii aan isku darno codkeenna handheerayno codkeenna halkani waa Laafawaadi Jabuuti ka dhigo wehelkaaga LVD. السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada warka LVD oo idin la socodsiin doonta anigoo Maymuuna qodobada wararkeena ugu doorka roonlane waxa kamid ah dawladda Jabuuti oo sheegtay inay sii xoojin doonto adeegyada horumarinta dadweynaha wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo soo gaaray dawladda deegaanka Soomaalida si uu uga qayb galo shirka xisbiga barwaaqo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeena marka hore Jabuuti wahagaag sida ay ku waramayso warbaahinta dalka Jabuuti ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti oo soo xidhay shir lagaga hadlayay horumarka adeegyada dadweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti Cabdiqaadir Kaamil oo shirka kaga qayb galay gobolka Tajuura ayaa ugu baaqay xubnaha xukuumadda inay si dardargeliyaan horumarka adeegyada asaasiga si kor loogu qaado adeegyada horumarinta gobolka intuu socday kulankani ayaa mas'uuliyiinta hay'adda dawladda waxay soo bandhigeen qorshayaal iyo mashaariic laga horumarinayo shacabka inkastoo ay xukuumadda Jabuuti wado dadaalo haddana shacabka Jabuuti ma helaan adeegyo ku filan Jabuuti waxay la daalaa-dhacaynaysaa dhibaatooyinka dhaqan-dhaqaale ee ka soo gaadhay taliska wali waxa inoo soo socda warbixino kale oo ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay halista nuclear-ka Ruushku adeegsan rabo balse aan ku horeyno Itoobiya wafdi hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga barwaaqo ayaa soo gaadhay xarunta Jigjiga ee deegaanka Soomaalida ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa ka qayb galay shirka gudida fulinta xisbiga barwaaqo ee Itoobiya oo markii la aasaasay kadib xisbiga barwaaqo ay martigelinayso deegaanka Soomaalida fulinta xisbiga barwaaqo ayaa waxa looga arrinsan doonaa xaaladda guud ee dalka waxaana la filayaa inay ka soo baxayaan qodobo kala duwan iyo waliba jihooyin xisbiga barwaaqo ayaa sanad ka hor ku guuleystay doorashooyinkii dalka ka dhacay hase yeeshee intuu xilka hayay wuxuu la kulmay caqabado kala duwan balse wuxuu kaga guuleystay dhibaatooyinkii soo food saaray midnimo iyo isbedel xisbigu uu ka keenay siyaasadda dalka Itoobiya muddada uu xisbiga dalka Itoobiya ka arribinayay wuxuu galay dalku xaalad dagaal taasoo keentay inuu hoos u dhaco dhaqaalaha dalka Itoobiya wixii wareey ka soo kordha shirka xisbiga barwaaqo waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay istaagaan la dagaalamka kooxaha argagixisada Al-Shabaab madaxweynuhu waxa uu xusay in Soomaalidu ay leedahay cadow oo ah argagixisada Al-Shabaab isla markaana loo baahan yahay inay si wada jir looga soo wada horjeesto dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo kamid yahay afayeenka Al-Shabaab ee Cali Dheero la aaminsan yahay inuu geystay falal argagixisanimo dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa qaybo kamid ah shacabka ayaa waxay howlgallo ku qaadeen kooxaha argagixisada Al-Shabaab oo ay doonayaan inay ka sifeeyaan gudaha dalka Soomaaliya wahagaag wararka ka imaanaya dalka Mareykankana waxa kamid ah in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ka digay halista nuclear-ka oo adeegsanayo dalka Ruushka madaxweynuhu wuxuu xusay in Mareykanku iska dayay inuu ogaado habka uu madaxweyne Putin uga lug bixi lahaa colaadda Ukraine madaxweynaha Ruushka ayaa dabayaaqadii bisha September ku dhawaaqay qaybo kamid ah abaabulka ciidamada loo dirayo dalka Ukraine wuxuu ku hanjabay inuu awoodiisa oo dhan u adeegsan doono difaaca dalka Ruushka taasoo cabsi gelisay dhammaan caalamka hubka waxgumaade ee nuclear-ka ee Ruushku ku hanjabayo ayaa ka soo cabsida laga qabo waxa haysta 9 wadan hubka nuclear-ka oo kala Mareykanka Ingiriiska Ruushka Faransiiska Shiinaha Hindiya Pakistan Israa'iil iyo waliba Kuuriyada Waqooyi war waxaan idinka haynay dalka iyo daafaha caalamka waa naga inta nabadgelyo waad ku mahadsantiin daawashadiina
ku xidhnow LVD waa codkaagii waa codkaygii waa codkeennii aan isku darno codkeenna handheerayno codkeenna halkani waa Laafwaadi Jabuuti ka dhigo wehelkaaga LV